Maxkamadda Federaalka ee maamulka Switzerland oo fadhigeedu yahay magaalada St. Gallen ee wadankan Switzerland ayaa waxa ay amartay in dowladda Switzerland ay u fasaxan tahay inay bilowdo dib u celinta qaxootiga leh faraha wadanka Croatia. Maxkamadda ayaa sheegtay in go'aankan ay gaartay uu yahay kii ugu dambeeyay isla markaana aan wax racfaan ah loo qaadan karin maxkamadda sare ee federaalka Switzerland. Amarkan ka soo baxay maxkamadda ayaa waxa uu saameyn doonaa boqolaal muhaajiriin ah oo ay Soomaali ku jirto kuwa oo soo maray wadanka Croatia isla markaana leh faraha Dublinka wadankaasi. Go'aanka ka soo baxay maxkamadda federaalka ee maamulka ayaa waxa uu quus goynaya rajadii ay qabeen qaxooti badan oo ka yimid Croatia kuwaasi oo si weyn u sugayay jawaabta ay maxkamaddu gaari doonto. Dhowaan ayay ahayd markii boqolaal muhaajiriin ah oo diidan ama ka soo horjeeda in dib loogu celiyo wadanka Croatia ay dibadbax ka dhigeen afaafka hore ee guriga dowladda ee magaalada Berna. Ciidamada Croatia ayaa lagu eedeeyay inay si xun ula dhaqmaan muhaajiriinta isla markaana jirdil iyo handadaad u geystaan, iyadoo dhowaan la helay muuqaalo ay duubeen koox wariyaal ah oo ka socday wadamada Jarmalka, Switzerland iyo Austria kuwa oo soo bandhigay muuqaalo ay ka muuqdaan tacadiyo ay sameynayaan ciidanka Croatia. Muuqaalkan oo lagu baahiyay inta badan telefishinada qaaradda Yurub ayaa waxa ka muuqday iyadoo ciidamada ilaalada xuduudda Croatia boqolaal muhaajiriin ah si qasab ah dib ugu celinayaan xuduudka wadanka ay jaarka yihiin ee Bosnia-Herzegovina. Dowladaha midowga Yurub ayaa ku kala qaybsan in wadanka Croatia ay xilligan dib loogu celiyo qaxooti walow Korowaadka ay ka tirsan yihiin dalalka ku bahoobay midowga Yurub isla markaana ay wax ka saxiixeen heshiiska xuduudaha furan ee Schengen-ka. Cabdiqani Cali Dalmar, Berna, Switzerland.